runtii waa aqbaliyo hadalka laga yaalo waan u aqbaliyeynayaa dhammaan ardayda takhasusaadka kala duwan iyo maraaxilka kala duwan ka kala jebisay xafladooda aynu fadhino jaamacadda Badar waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu cilmigeeda anfaca adduunka iyo aakhiraba oo idinka dhigo waalidiintoodii iyo cid kastoo ku soo tacabtayna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo runtii laba qodob baan oran lahaa mid waa hambaliyada dhalinyarada iyo dadka kala jebiyey kala duwan iyo inuu ducayno runtii kolley sida dardaara waa la soo dhameeyey wuxuu baan oran lahaa tacliim qof waliba in ku filan maanta uu bartay halganka noloshana waa qaybo badan tahay mid ku shaqo taga iyo mid shaqadiisii hore kusii wanaajiyaba waxa weeye qof waliba halganka nolosha ayuu qayb ka gelayaa markaa horta ilaahay ha idin fududeeyo waxaana loo baahan yahay dadaalka aa wadaan ee waxbarasho inaydan halkaa ku joojin ee aa sii wadaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin fududeeyo jaamacadda Badarna runtii intii hore ubaa la qabaa waxba ku celin maayo jaamacadda Badar jaamacadaha qarankaay ka mid tahay weliba jaamacadaha xagga waxbarashada ugu tayada leh ayay ka mid tahay laba arrimoodba waa ku sababay lahaa mid kolley waxa weeye nidaamka waxbarasho oo asal ay u tahay akhlaaqda wanaagsan iyo diinteedna suuban hadday tahay madaxda boorka maamulka macallimiinta ardayda marka biyo ahaan waa bii'ad diin ku dhisan wuxuuna diin ku salaysan yahay barakadeedu yeelanaya marka taa waa ku ammaanaya talabaadna waxa weeye takhasusaadka dhigaan baa sidii halkan laga sheegay takhasusaad taabanaya nolosheeda waayo tacliintu haddii ayna nolosheeda wax ka bedelin habdhaqankeeda wax ka bedelin waxba aynu ka soo kordhinayso marka jaamacadda Badar takhasusaadka dhigaan amba ay awoodda saaraan ee koorka u ah waxaan ka markhaati kacaya inay yihiin kuwaynu ugu baahi badanahay educationka iyo waxbarashada iyo tarbiyada waa laga hadlay dhaqaalaha oo waxa weeye jaamacadda keliya amba xagga hormuudka kaga jirta waxaan la idhaha islamic finance-ka amba islamic bankiska jaamacadaha dhiga ay hormuud ka tahay iyadoo sidii bangiyadii halkan uga horreeyana ay ka markhaati kaceen bangiga dhexena shaqaalihiisa intiisa ugu badan ay jaamacadda ka kala jebiyeen iminkana dhigtaan iminkana ka kala jebinayaan dhaqaaluhuna waa meelaha halbowlaha waa ummadda hadaynu ummad islaama nahay inaynu dhaqaale helno islaam ku salaysan aqoonteedana kor u qaadno maalgashiga islaamkana runtii aqoonteeda la yeesho runtii jaamacaddu waxay soo saartay dadaal badan qaybta saddexaadna waxa weeye garsoorka oo isaguna runtii ah cadaaladuna waxa weeye markii dhaqan iyo ethics leedahay way toostaa oo waxa weeye marka jaamacadda Badar xaggaana awood bay saartay waan u hambalyeelayaa wuxuu baa kusoo gabagabeynaya hadalladii guddoomiyuhu halka ka sheegay iyo qiimayntii lagu sameeyey jaamacadda wuxuu baan oran lahaa halkaana laga sii wado marka institution la qiimeeyo macnaheedu waxa weeye waxaa la socdaa requirements baa la socdaa amba waxyaabaha ay fuliyaan oo institutionkaasi si uu u gaaro heer caalamiya inuu ka soo baxo kolle waxaan qabaa waa laygu hambalyeynaya intaa laygu dhameeyey wuxuu baan leeyahay hore oo ka sii socda hay-aduhu markay mararka qaarkood marna kor bay u dhacaan marna hoos laakiin waxaa loo baahan yahay tacliintu inay noqoto mar kasta sanadba sanada ka dambeeya inay kor usii kacdo waan u hambalyeynaya marlabaad iyo masaddexaad ardayda kala jebisay iyo waalidiintooda waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka dhiga cilmi naafica wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu